TPLF gaar ahaan garabka uu hogaamiyo Dr. Debretsion ayaa waxay sheegeen in aan sina loo aqbali karin magacaabis iyo eris kasta oo uu sameeyo maamulka ku-meel gaarka ee uu hogaamiyo Getachew Reda. Hadalkan oo ay soo saartay madaxa xarunta dhexe ee xisbiga TPLF haweeneyda lagu magacaabo Fitlawarqa Gabriel Gaber ayaa waxay sheegtay in si kasta oo maamulka ku-meel gaarka uu sameeyo magacaabis ama bacaydin aan taasi noqonayn wax shaqayn doonta maadaama ay tiri go'aanadaasi ay sharciga baalmarsan yihiin. Fitlawarqa oo dhawaan shirweynihii 14aad markii uu soo gabagaboobay loo doortay madaxa xarunta dhexe ee xisbigaasi gaar ahaan ururka TPLF ayaa waxay sheegtay in talaabo kasta oo baalmarsan xeeruusaadka ururka TPLF aanu shaqayn doonin. Fitlawarqa warqadan ay soo saartay ayaa waxay daba socotay kadib markii dhawaan uu Getachew Reda xilkii gudoomiyenimo ka caydiyay Lia Kasa oo ahayd gudoomiyaha koonfur bari ee deegaanka Tigray. Haweeneyda Lia Kasa ayaa waxay xilkeedii ku weydii kadib markii shirweynihii 14aad ee TPLF gaar ahaan garabka Debretsion loogu doortay inay ka mid noqoto xubnaha guddiga fulinta. TPLF oo 50 sano jirsatay ayaa kala qaybsanaanta hadda u dhaxaysa waxay sheegeen inay tahay tii ugu weyneed ee intii taariikhda jirtay soo martay inkastoo tiraba 3 jeer hore ay kala qaybsanaan noocan iyo soo foosartay balse xiliyadaas siyaabo kala duwan ayaa loo xalin jiray. Fitlawarqa ayaa warqad ay u qortay gudoomiyaasha gobolada iyo degmooyinka deegaanka Tigray waxay ku sheegtay in muddo badan maamulka ku-meel gaarka uu ka shaqeynayay sidii uu burburin lahaa ururka TPLF waxayna sheegtay in magacaabis kasta iyo waliba caydin kasta oo hogaamin lagu sameeyo gaar ahaan kuwa TPLF ay tahay mid ka hor imanaysa xeeruusaadka TPLF sida darteedna ayna noqon doonin wax shaqayn doona. Fitlawarqa ayaa waxay sheegtay in maamulada gobolada iyo degmooyinkuba magacaabis kasta oo ay sameeyaan maamulka ku-meel gaarku ama caydin kastaba ay noqon doonin wax shaqayn doonta isla markaana qof kasta oo shaqada laga qaado aanu wareejinin shaqada uu hayo ku kasta cusub oo yimaadana aan lagu wareejinin wax shaqa. Shir ay garabka TPLF gaar ahaan qaybta uu hogaamiyo Getachew Reda ka hor inta aanu dhamaanin shirkii 14aad waxay ku sheegeen in shirkoodaasi uu ahaa mid lagu badbaadinayo TPLF balse taasi waxay ugu dambeyntii sababtay in Getachew iyo xulafadiisiba laga saaro ururka. Lia Kasa haweeneydan hadda buuq ka taagan yahay ayaa iyaduna waxay fursad u heshay inay ka mid noqoto guddiga fulinta. Magacaabista uu sameeyay Getachew Reda iyo xilka qaadista uu ku sameeyay mas'uuliyiinta TPLF gaar ahaan qaybta Debretsion ayaa waxay dhabaha u xaari doontaa in khilaafku waji kala yeesho. Horay markii shirka la soo gabagabeeyay shir jiraadu Dr. Debretsion qabtay ayaa waxa uu ku sheegay in maamulka ku-meel gaarka cidda iska leh ay tahay TPLF cidda waqti xaadirkan talada haysana ay shirkii iyo waliba xubnimadii TPLF ay sidaas ku waayeen sida darteed aan ahayn karin xilka TPLF maadaama 150 ay talada deegaankaas leedahay TPLF gaar ahaan dhismihii maamulka ku-meel gaarka. waxaana sheegay in TPLF ay ahayd cidii saxeexday heshiiskii Pretoria sida darteedna xuquuqaha iyo waliba waxyaabaha kale waajibaadka deegaankaas ka dhacaya ay yihiin kuwa TPLF ay toos u leedahay sida darteed maamulada hadda talada haya ee TPLF qaybta ka ahayn in xilka sidaas kaga dagi doonaan. Waxa uu sheegay marka hore ay ka soo horeyso in dawladda federaalka ay wada hadal la yeeshaan. Su'aasha la isweydiin karayo waxay tahay haddii Dr. Debretsion iyo xulafadiisu ay ku adkaystaan in Getachew ay karkaarka weydaariyaan maxaa dhici kara. Dawladda federaalku oo aan ilaa hadda si rasmi ah uga hadal go'aanka TPLF shirweynaha ku qabsatay wixii ka soo baxay inkastoo horeba uu sheegay in shirkaasi waxa ka soo baxay sharci darro yahay ilaa haatanna natiijadiisa kameena hadal balse waxa la isweydiinayaa haddii xilka lagu qabsado Getachew Reda dawladda federaalka maxaa la gudboon ma dagaal mise wada hadal waqtiga ayaa ka jawaabi doona.